kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ayaa waxaa lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo maamul sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaana kulankan goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Mudane Cabdicasiis Cilmi Cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Professor Maxamuud Maxamed Axmed qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay kulankan ayaa hambalyo u jeediyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyagoo dhanka kalena taageero u muujiyay maamulka loo sameyn doono gobolada dhexe ee Soomaaliya horta waxaad ogaataan waqtigan lagu jiro qof xil loogu mahambaliyeeyo waa tacsi horta xil waqtigan la qabtaa hal ogaado horta maanta taas macnaha waa qof xil maanta uu qabtay loogu mahambaliyeeyo waa loogu duceeyaa maxaa yeelay waa ogtiin xilka iyo seeftu waa isdul saaran yihiin saad ogtihiinba dowlad cusub aan ra'iisul wasaaraha la magacaabay sida loo taageeray ayaan u taageersanahay xilkana waxa uu la qabaa saan sheegay duco u baahan yahay maahan uma baahna tacsi iyo hambalyo uma baahan taageero uma baahna asagana waxaan leenahay cadaaladda Allah kugu dubo maamulada loo dhisayo gobolada dhexe oo runtii muhiimad weyn leh qayb libax inaan ka qaadanana mudan xoolo iyo xoog iyo hadal intaba waxaan kaloo u hambalyaynaynaa kana rajaynaynaa in ay noqoto tii Soomaaliya samata bixisa dawladda cusub oo la rajaynayo oo uu hogaaminayo Cabdirashiid Cali Sharmaar waxaan kaloo ku taageeraynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la magacaabay waxaan ku soo dhaweynaynaa kala gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna dunga magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mongaab hawsha uu ka qabtay gobolka Banaadir iyo noocyada uu qaabka hadda uu shaqada ku wado intaba waa soo dhaweynaynaa annagoo leh meesha ay joogto ka sii wad maamul sameynta gobolada dhexe oo muddo dheer la sugayay dawladda federaalka waxaan ka codsanay inay dardar geliyaan dhismaha maamulkaas sida raggii hore yirina walaada in la joojiyo aan ka codsanayna dadka walaalaha ah sidoo kale waxa iyaguna kulankan hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Mudane Cabdicasiis Cilmi Cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Professor Maxamuud Maxamed Axmed waxaa la socotaan gobolka Banaadir muddo dhow ka hor wuxuu ahaa meel dadka lagu dilo oo maaragtay la isla hor yimaado hadda wuxuu u baxay dabadhis iyo maaragtay sidii loo dardargelin lahaa dhibaatadii soo gaartay hore u soo gaartay kaalinka lii magacaabana waa kaalinkaas dabadhiska iyo maaragtay horumarinta gobolka Banaadir insha Allah tacaala waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan maaragtay aan at least ugu yaraan aan maaragtay muujiyo wax la qaban karo insha Allah ma la taaban karo insha Allah adinkana waxaan ka rajaynayaa inaan maaragtay aad hiiliyo ka geysataan kaalinka kaga aadan dabadhiska gobolka Banaadir waa degmooyinku waa goboladiinii waa gobolkiinii maaragtay horumarkiisa iyo maaragtay dabadhiskiisa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad ka qayb qaadan doontaan dagaalada soo noqnoqday ee in dad ku dhintay mooye aan faa'iido kale keenaynin in la joojiyo beelaha hadda dagaalku dhaxdhacana inay si nabada u qaataan si ay ugu socoto muxuu ahay waxqabadkii wax loo qabalahay beeshii iyo dhismihii gobolkii laana dad colaadu ka dhaxaysa gobol isugu imaamayaan ay dan guud ku leeyihiin marka in danta gaar in la dhameeyo oo muxuu ahay laga wada hadlo muxuu ahay lana dhameeyay beeshu aad u rajaynaysaa kulli qaybteedana way ka qaadanaysaa beeshu yani gobolkiibay wax uga nooshahay wax ka joogtaa waxaan markaa muxuu ahay ku soo maaragtay yani koobaynaa in waqtiga cusub uu noqdo waqti iyo sanadka cusubba mid Soomaaliya u horseeda horumar iyo muxuu ahay mustaqbal wanaagsan oo looga baxo muxuu ahay dhibabka jira Cabdiraxmaan Soomaali warbaahinta qaranka Nairobi.